waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaayo Show. Aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad ula socotaan una daawataan muuqaaladan bartan soo dhigno. Fadlan haddii aad markii kugu horeysa janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar, haddii uu muuqaalku ku cajab gelinayo sidoo kale like inoo saar. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waa maxay sababta ka dambaysa in jilaaga caanka ah Salmaan Khan inuusan iska dhigin barsoleedka ugu jira gacanta ama kadiinada gacanta ugu jirto. waa maxay sababta uusan iskaga dhigin had iyo jeer uu gacanta ku wato? su'aashaas ayaan rabaa inaan idinkaga jawaabay. soo dhawaada saaxiibayaal. sida aan la socono ama aan aragno inta ugu badan Salmaan Khan waxa gacanta ku jirto barsoleed ama katiinad yar oo afka hore ama geed yar oo kuusan oo buluug ay ugu xiran tahay. inta ugu badan aflaamtiisa ayaan ku aragnaa saaxiibayaal. haddaba ma isweydiisay weligaa waa maxay sababta ka dambaysa in uu mar walba gacanta ku sito jilaagani Salmaan Khan? haddii aan idinkaga jawaabno su'aashaasi, waxa weeyaan sida aan aragno Saluu had iyo jeer waxa gacantiisa midig ugu jirto katiinad, waxaana jira dad badan oo marba wax ku tilmaamo, laakiin maanta waxaan idin wadaagi doonaa sababta ka dambaysa xirashada katiinadaasi saaxiibayaal. Salmaan Khan waxa baraskeedkaasi ama katiinadaasi siiyay ninka lagu magacaabo Salim Khan oo ah aabaha dhalay ninka lagu magacaabo Salmaan Khan. Salim Khan ayaa yiri hadda ka hor wiilkayga ma uusan ahayn qof guulo gaara ka hor inta aanan siinin barasleedkaas ama katiinadaasi, laakiin markii aan wiilkayga si hadiyad ahaan u siiyay waxa uu noqday qof yani aflaamtiisa ay guulo waaweyn ay gaaraan ayuu xusay ninka lagu magacaabo Salim Khan. dhanka kale Salmaan Khan hadda ka hor waxaa la weydiiyay Salmaan oo maxay sababta aadan iskaga dhigin barasleedkan ama katiinadan? waxa uu ku sheegay waxa uu yiri waxay tahay yani xirsi, waxyaabaha Soomaalidu ay dhahaan yani cayuumanaas oo kale. sidoo kale waxa uu yiri waxay tahay nasiib, waxa uu kale ii sii tahay ayuu yiri hadiyad uu aabahay siiyay, waxaana jeclahay inaan mar walba xirnaado ayuu yiri. dhan kale saaxiibayaal waxaa jira aflaam badan oo jilaaga Salmaan Khan uu sameeyay laakiin uusan katiinadani uusan xiran saaxiibayaal. aflaamtaasi waxaa laga xusi karaa filimka caanka ah ee Bajrangi ama Bajrangi Bhaijaan filimka lagu yeero saaxiibayaal. sidoo kale aflaamta uu ku qaatay ama katiinadan uusan ku jirin laakiin guulaha weyn gaarin waxaa kamid ah filimka Kick lagu magacaabo. sidoo kale Dibangi ayaa kamid ah saaxiibayaal aflaamta uusan xiran. sidoo kale aflaamta uusan katiinadan aysan u xirin haddana guulaha waaweyn gaarin waxaa kamid ah Ekta Tiger filimka lagu yeero amtaxanaha Ekta Tiger. sidoo kale aflaamta kale uusan ku qaadan katiinadani waxaa kamid ah filimka caanka ah ama filimka lagu magacaabo Suldaan ayaa kamid ah aflaamta uusan katiinadan uusan wadan haddana guulaha waaweyn gaaray saaxiibayaal. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xogta yareed ee aan kaga hadlaynay waa maxay sababta uusan Salmaan Khan iskaga dhigin katiinada gacanta midig ugu jirto. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar, haddii aad janaalka cusub tahana subscribe inoo saar si aad u hesho sheekooyinka kaa qarsoon ee la xiriira arrimaha aflaamta. waana ku mahadsantihiin daawashadiina.